نبي عليه الصلاة والسلام waxa lagu yiri adiga xataa shaydaankaas ma kula xiriiraa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri aniga xataa waa ila xiriiraa illa anna allaha a'aanani alayhi laakiin aniga ilaahi subhanahu wa ta'ala baa iga kaalmeeyay fa aslama wuu islaamay shaydaankaygi aniga xiriir fala ya'muruni illa bi khayr aniga khayr mooye wax kale ma amro saasu nabiga kaleey salaatu wasalaam marka shaydaanka waswaaska oo qofka waswaasinaya ma ilaahi subhanahu wa ta'ala ka magangalay qofkana waswaas shaydaanku waswaaska waa jira qofka waxba ku abuuraa oo waxa jirtay nabiga kaleey salaatu wasalaam habeenada kamid ah masaajidkiisa ku itikaafaya oo fadhiya ayaa xaas kamid ah xaaskiisa Safiya la oran jiray baa nabiga kaleey salaatu wasalaam soo booqatay nabiga kaleey salaatu wasalaam baa u timi cabaar buu la joogay hadhowda markay danihii ay sheekadii dhameysteen ayuu nabigu damcayno soo dhaweeyo laana nabigu wuxuu rabaa masaajidku itikaaf ku jira markuu soo baxay masaajidka soo baxay ayaa waxa ka hor yimi laba qof oo laba dhalinyaro ah oo dadka ansaarta la oran jiray oo magaalada Madiina deganaaha markay arkeen bay istaageen marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri ala rislikuma innaha safiyatu binti huyay ukaashabu yiri qofta ila socota safiya weeyaan nabigu wuxuu ka baqay shaydaan inuu qalbigooda wax ku tuuro si sheegi doono nabigu ay u qaataan nabigu habeennimada haweenka la socdo فقال مركز لبدي والوحي يرادين سبحان الله يا رسول الله إلهي برحماك ناس رسولك إلهي يعني ما فلين بيري بيكوضع معنا إلى أدوه يعني وح حمارة إنا سمينيس نبي مركو وحير إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا وحير الشيطان كأيا وحو صعنا يا قفك ميشا ديقو مريو تركيسا meesha dhiigu marayo ayaa shaydaanku socdaa waxaan ka baqay inuu qalbigiina wax kala ku tuuro Soomaarti marka shaydaanku qofka uu ku dhex jiraa shaydaanku wuxuu marayaa dhiigaagu meeshu marayo nabigu yiri marka shaydaanka noocaas ah Allah ka mangal waxa Allah ka mangalay min sharri alwaswasi sharka waswasiya al-khannaasi ee gabashada badan alladhi kaaso yuwaswisu waswasinaya fi sudurin naas dadka laabahooda oo min al-jinnati shaydaanka soo jinka xaqiisa kamid ahaaday shaydaanka jinka xaqiisa kamid ahaaday iyo wanaasi shaydaanka dadka xaqiisa ka ahaaday shayaadun al-jinni wal-ins ay ala kama galableey qul waxa tiraada a'uudu waxaan magan galay bi rabbin naasi allaha yaan dadka rabbigooda ayaa magan galay malikin naasi dadka allahi iska laha oo maamulaya oo boqorka u ahaa oo xisaabinaya ayaan magan galay ilaahi naasi dadka ilaahooda magan galay من شر الوسواس شرك وحوسواسية كان وحوسواسية شركي سأيا الله كمان قالي الخناس قبشة بدن وقبنايا فإذا ذكر الله خنس بليه ابن عباس رحمه الله تعالى شيطانكو ابن آدم كبه كجرا وهذا يقول كل حجرا فإذا ذكر الله خنس مركو الله سبحانه وتعالى قفكو حسه شيطانك وقبنايا وقبشة بدنيا ساسا مركو لوغو بحشي يعني خناس كي قبش ضبنا الذي شيطان كاسو يوسوس وسواسنا في صدور الناس ضدك الله بهذا او من الجنة جنك حقيسة كمدها شيطان جنك حقيسة كمدها يو الناس ضدك حقيسة كمدها سورة كوي حتى واحد هذا سورة الفلق وسورة مركون حكت المامي نويان وانا سورة سانو الشاقني إن لسكو أخري يقفكم كجري هاي إلا قمار مانتاي سان شيغانا marka hore waxa weeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuu isku akhrin jiray markuu saxanayo marka qofka xanuunsan nabigu ay isku akhrin jiray suuradan marka waa iyadoo suurad markii weeyaan oo xilliga nabiga kaleey salaatu wasalaam magaalada Makka joogay soo degtay suuratul falaq baa leeyahay aayaadkeedu waa 5 aayadood weeyaan bismillaah ilaahay magaciisa ku bilaabay arrahmaan ilaahay naxariista guud laha magaciisa ku bilaabay arrahiim ilaahay naxariista gaar laha magaciisa ayaa ku bilaabay qul waxa tiraada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam أعوذ وحن مغنقلي برب الفلق فلق ربي سيما مغنقلي وبرق فلقنا وحويان وبرق ويان الصبح صباح ذي ويان وحن لما معناتها هاي إلهي سبحانه وتعالى اللي يفالق الإصباح صباح ذا كيف يدي الله سبحانه وتعالى ويان قل وحد هذا أعوذ وحن مغنقلي برب الفلق وبرق ربي إسكالها أيان مغنقلي
min sharri maa khalaqa waxau alla abuuray sharkiisa ayaa alla ka magan galay wax kastoo alla abuuray sharkooda ayaa alla ka magan galay iyo wa min sharri sharkii baan alla ka magan galay ghaasiqin mugdiga markay tahay idaa waqtigii waqaba uu gabal ku dhaco marka uu gabal ku dhaco oo habeenkii la gaaro sharkiisa ayaa alla ka magan galay wa min sharri ghaasiqin mugdiga sharkiisa ayaa alla ka magan galay idaa waqtigii waqaba gabalku uu dhaco wa min sharri nafaathaati haweenka sixiroolayaasha ah oo wax afuufa sharkoodama alla ka magan galay fil cuqadi guntimaha dhexdooda marka wax ku afuufayaan guntimahana waxaa laga wadaa qofku markay wax sixirayaan oo sixirka la sameynayo ayaa xarga iyo wax laisku xiraa laisu guntaa kabacdi wax lagu akriyaa مثلا timaha marka qofka la soo qaado sixiraayo kale waa la dhexgeliyaa waa lagu xiraa wax guntan oo isku urursan bay wakaanaysan ka bacdi waxay ku tufaan taasa marka wax Allah subhanahu wa ta'ala dadka waxa sameynaya ayaa Allah ka maangalay buu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam jibriil baa u yimi markuu u yimi wuxuu ku yiri istakayta ya muhammad nabi marka uu jirana marka nabiga la sixray bay ahayd faqala na'am ha waan jiranahay buu yiri faqala جبريل مركا وحي بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك ابن كثير مركا وحي ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم نبي مركو الشيغان يباهي مكة الله السحري والله سبحانه وتعالى وكبا بحنونك يسحر كهي مركا يريدوا استعمالي جبريل وحويان وحكو يري magaca Allah subhanahu wa ta'ala baan kugu tufayaa min kulli daa'in yudik wax kasto cudur ama dhiba oo ku dhibaya bisinka Allah subhanahu wa ta'ala kaaga tufayaa wa min sharri kulli hasidin wa 'aynin mid kasto haasida sharkiisa iyo ishiisa Allah yashfik mid kasto haasida ishiisa ama il kasto kugu dhacda baan kugu tufayaa kaaga tufayaa magaca Allah subhanahu wa ta'ala kugu daweynaya Allah yashfik Allah subhanahu wa ta'ala kugu daweynaya marka qofka haduu xanuunsan yahay inuu isticmaalo adkaarta soo aroortay iyo labada suuro hadda aan sheegnay waa arrin la doonayo weeyaan wa min sharri sharxis baan la ka maangalay an-nafaathaati haweenka wax sixira fil uqad ama wax ku tufa fil uqad guntiba wa min sharri hasidin hasid sharkis baan ka maangalay Allah subhanahu wa ta'ala idaa waqtigi hasada oo hastayo shaydaanka yani qofka xaasidka markuu xastayana ilaahay baa ka maangalay buu leeyahay marka waa laba suuradood oo runtii ilaahay subhanahu wa ta'ala maangalidiisa ku jiidayo in la barto oo la isku akhriyo ay maaratay ay haboontahay weeyaan qul waxa tiraada nabi maxamed wa'uudu waxa maangalay bi rabbil falaq wa bariga rabbigiisa ayaan maangalay min sharri ma khalaqa waxaan ka maangalay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa abuuray sharkooda ayaa Allah ka maangalay ومن شر غاسق وحن كلو كمان قلي مقدق الشركيسة إذا وقتي وقب قبل كدعه ومن شر النفاثات كو وحطفه مرك وح سحر يان وي شركودا أيان الله كمان قلي في العقد كنت ما هذا حوالي وحيالك ورشان اسكو حران مرك كتفايان أيان الله كمان قلي ومن شر حاسد مذكستو حاسد شركيسة أيان الله كمان قلي إذا وقتي حسد وحسد ويان سورة النوح تنوح ويان سورة لو يقانه سورة السمد وينو نقانه أما سورة الإخلاص وينو نقانه قل هو الله أحد سورة إيادا هي نبي عليه الصلاة والسلام فضائل بدن بو كشاغي فضائل شأو نبي عليه الصلاة والسلام كشاغي ووحا كمده نبي عليه الصلاة والسلام مالي مالمها كمده أيو كوح سريع دري ولا صهنا مدولان أبو دري نمبو مدح وقدقي مركو نم مدح وقدقي نكا إساقه مركو تجينايو رقعاد ولا بو مركو دمينايو وحو كسو ختيمايي قل هو الله واحد سورة دان مركا يسون نقدين بين نبي وشي روحي نكاس مدح نو أها صلاة بونا تجينايو مركو رقعاد تكدو فاتحة دي أخريو أو سورة كلا أخريو مرو كوعو إلا قل هو الله أخريا انتي أنا مقنعين أن صول لابنين كل اتصاص نقوة نكاني نبي مركو سبحانه وتعالى نبي وحي مركاس سألوه لأي شيء يصنع ذلك
bal weydiiya wuxuu saa u samaynayo fasa'aluuhu way weydiiyeen waxay ku yidhahdeen maxaad saa u samaynaysaa maxaad saa u samaysay oo ragcad walba aad tukanaysid maxaad quluulaha ugu soo dartaa faqaala ninka wuxuu yidhi liannahaa sifatu araxmaan wa ana uxibu an aqra'a biha maxaa yeelay buu yidhi waa ilaahay subxaanahu wa tacala raxmaanka ahaa tilmaamihiisi weeye allay ka hadlaysa suuraddaani aniguna waxaan jeclahay inaan akhriyo faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi akhbiruuhu ana allaha tacaala yuxibuh u warrabo u sheega in ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay u fiirsada jacaylka uu jecel yahay suuraddaas awgeed uu akhrinayay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisu wuxuu yidhi waxaad u sheegtaan inuu allah subxaanahu wa tacaala jecel yahay xadiis kalea ku soo arooray oo xadiiskaas oo kale ah laakiin qaabka iyo siiqada ka duwan wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nin diray ciidan buu la diray ninkaasi salaad buu tujinayey markastuu salaad tujiyana wuxuu kusoo darayay maxay qulwallo kusoo darayay markaase waxay ku yidhaahdeen warniyu qulwallaha keliya akhri markaa faatixada akhrido ama suurad kale akhri iska daa suuradaha ragcad walba qulwallaha akhrinaysid ma ana bitaarikiha bi anuu ka tegi maayo bi waa akhrinaya bi in axbabtum haddaad jeceshihiin inaan saa ina ku tujiyo facaltu waan samaynaya haddii aad nacdeense waa ina ka tegaya bi ninkan marka wuxuu arki jiray nin fadli badan oo khayr badan weeye inuu ka tago ma ay rabin waa dul qaateen ilaa ay nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen markay nabiga u yimaadeen bay arrintu u sheegeen waxay ku yidhaahdeen ninkaani ragcad walba uuna tujinaayo qulwalluhu ku daraa nabiga calayhi